nin taajir ah waa toddobaataneedkii qarnigii hore 1970 weeyaan ninkaas xoolo badan buu lahaa cudurka kansarka la yiraahdo yaa ku dhacay waqtiga iyada taariikhda iyada dalalka carabta kansarka lagu ma daaweyn jirin ninkii xoolo lahaa go'aan buu qaatay inuu dibadda daaweyn u aado Mareykanka u aaday baaritaanadii dhiigga godhan markii la qaaday ninkii waqtigii la ballamay uu soo noqday dhakhtarkii u yimid وعلى النية وعور كاغو وقت اللي داوين لها وضافي وحبنا لقما قبان كرايو واحد يشا قولوا ياغي اسكيغان نقوء برادة اسكيغان ديمو انت عاد نولان كرتنا وحال بالله يعني مركان انا قول علم قانا ياقونت نادي سوكيني حال بالله سي وراقي كرتا نيكي وصون نقضي يسوى وحي والبهار الدنيا ورن وكسو أوروري حواليه يوحي طبيعي تجاربدي ما aysan qancinin hada ruux la baraad imanaysa hadii bari lagu dhaawriyo bari damaad imanayso dhab ay tahay xageed wax ka bilaabi lahayd filan wad waalan lahayda adoo xaashaha gurma lagu arki lahaa nin leeydo war bil kadib aad imanaysa maxuu sameyn gurigiisu iska fadhiistay bishii baa la gaaray 10 bari waa dhamaatay waa la socday 10 kala dhamaatay intee leeg waa harsan 10 baa soo dhashay sida ay dhakhtaradu u sheegeen isagoo aad u walbahaarsan yaa rooba Dimashq ka dacay wuu soo baxay meelaha iska soo yarnasatid kulay maalmaha ku warsan iska yar uun meelaha iska soo raxay iska soo nasatid isagoo socdo yaa jid laan u soo qaaday jidka laamida dabcan waxa hareerihiisa lagu sameeyay meelaha ay dadku maraan meel nal hoostiisa ka fadhiistay wuxuu arkay nin dhalinyaro oo xanja iska xadhaya oo isleexleexnayo waxoogay inuu hanti leeyahay aad moodo iyo gabadh ruux dumar ah oo ku naban oo hadalka ay isla yar helayeen waxa soo gaaray oo codku soo gaaray isagoo leh intaas jidkaaga ma kaaga gataa inta xumaan ma kuugu sameeyo ma qaadan intaas mise waa iska tagi gabadha waxa jirmay inta maya ninkii markuu kii dhalinyarta iska tagay ninku waa taajir xoolo badan buu leeyahay laakiin geeri baa qarka u saaran oo dhimanayaa sida loo sheegay weeyaan sida ilaahay uu yiri ma aha cimriga intuu ilaahay uga dhigay gabadhi uu yeedhay waxa uu yiri hadalkiina waan maqlayay bal iiga waran qisadaada iyo xaaladaada bal iiga waran waxa jirniyahu waxaan ay hooyo 5 caruur ah leh ninkaygiina dayn buu u xiran yahay qisaduna waa xaqiiqo dhacday ma aha wax iska sheeko ninka culimada waa goobjoog baan ahayn buu leeyahay ninkaygiina dayn baa loo xiray guri baan kira ugu jiray gurigii kirada waan iska bixin waayay caruurtana meel baan kawaanaan hilibka uga soo qaadi jiray nin subaga keenana wax yar baan ka qaadan wixii oo dhan waa iga istaagay caruurtii bannaanka la igu soo tuuray cidlay fadhiyaan wixii aan ciidaanka ahana waa la iga gooyay marka maxaa kuu kalifay wuri inaad ninkan jirkaaga aad kula gorgordanto waligay ma sameyn kuma fikirin waxa igu kalifay tiri dibkii culayska ay haysteen meeshan Allah igu kaliftay tiri waxaan salaamay tiri armaad wax yar jirkaaga inta soo hesho caruurtaada aad ku qoodisaa meel aanu wax u cirsadana ma hayo ninkii hal shart ama ay sameyn kartaa buu hal shart ah oo kaliya ana waxa deynta ana ka bixin biilna waan ku qori hal shart kalima ay fulin kartaa oo muxuu yahay tira shardigaas wuxuu yiri inaad dib dambe barnaamijkaada ugu fikirin waxaad nin ilaahay ii soo kaadira ilaah baaba ii soo kaadiray hadda ka hor kuma fikirin baahidii ii geysta hadii ilaahay ka kafaala qaadana maxaaba igu wataba ninkii gurigiisii uu dib ugu noqdo waa nin taajira 10 bari waa u dhiman sida dhakhtaradu u sheegeen lacagtii lagu lahaa ee guriga laga lahaa ninkii ciwaankii uu ka qaatay ciwaankii uu ku soo raadiyay gurigii uu tagay ninkii guriga lahaa lacagtii uu lahaa oo dhan buu u shubay 3 sano oo horumarin ana wuu siiyay ninkii hilibka ku lahaa iyadana wuu u tagay lacagtii buu ka bixiyay kii subaga u keenay jiray lacagtii buu ka bixiyay kadibna wuxuu u qoray mushaahar joogto ah u qoray maalmo yar baa u dhiman Soomaa 2 maalmood baa tagtay 8 maalmood baa u dhiman intuuna dhimanin yuu dardaaran qoray dardaaranka uu qoray wuxuu ahaa wiilashiisa inuu loo dardaarmay uu yiri haddii aan dhigto waqtigayga waaba iska gabagabe gabadhaas iyo caruurtaas
lacagta aanu qorayaan laga goynin sidaa ha ugu socoto sanduuqiisii khaaska abuu gashaday 8 maalmood oo u soo harsaneed way dhammaatay ninkii ma dhamanin waa nool yahay bil kale hawshiisii waday wali waa nool yahay bil labaad buu waday wali waa nool yahay sanad buu waday wali waa nool yahay 3 sano 10 sano 20 sano oo dhammaystiran yuu ninkii ilaahay dib xayaatadiisii u sii baaqi yeelay sadaqada iyo sida ay tahay aad ula soco iyo faa'iidada ay leedahay 20 sano oo dambe yuu ninkii soo noolaa hawshiina sidii buu u waday 20 sano markuu sidii ahaa yaa wiilkii maalinta carruurta ahaa ee gabadhu dhashay yaa qaan gaadhay oo shaq uu bilaabay ninkii isagoo salaad subax u taagan ma isagoo sujuudsan ee naftu ka baxday ninkii 20 sano kadib weeyaan ninkii tacsiyadii baa lagu mashquulay 7 beri kadib yaa sanduuqii la furay dardaarankii aabbaha lagu arkay oo 20 sano ka hor uu qoray ogow waa ninkii la lahaa bil baad ku dhimanaysaa warqadii baa la soo qaaday iyo xoolihii gabadhii iyo gurigii ciwaankaa la haysta waa la yimid albaabkaa wiilkii ugu weynaa ee ninkaasi dhalaa ku garaacay wuxuu yidhi naga raalli ahow 7 beri baan kaa dib dhacnay xaaladdaasaan ugu timid gabadhii aad intay u oyday yaa waxaad horta qalbigaan idinka mahad celinayaa inta aan noolahayna ninkaas waan u ducaynayaa laakiin ilaahay wuu igu filaado 7 beri yaa wiilkaygii weynaa baa shaqo bilaabaye waad mahadsantiin markii u fiirso ilaahay xikmadiisa markii ninku filaaday ilaahu soo saaro wiilkeedii ah yaa ilaahay ninkiina oofsaday sadaqada badbaadada ay leedahay u fiirso waxaan rabaa markaa inaan idhaahdo warnimayo waxyaabo badan baa inaga khaldan oo waxyaabo badan baa si inaga ahe taas sadaqadaas albaabka aan ku furanno waxaad bixista wax ka baraka badan baa ilaahay ku siinaya shalay soomaalin dhow ma ya weliba shalay maan xalay bacda taraawiix baan niman baan sheekaysanay 2 nin baan marka un adu sheeka ay ka sheekaysanayeen anna goobjoog baan ah 2 nin ninna kuma talagelinaya wax un iska un sudfo oo cajaa'ib loo leeyahay fadliga sadaqada iyo khayrkeeda iyo qofka ilaahay sadaqad dartii u bixiya inuu ilaahay bedel khayr qabo oo siinay baa laga hadlay nin baa wuxuu yidhi niyahow galabta wax cajaa'ib laan arkay maxaad aragtay 5:40 markay ahayd galabnimo ama 11 saac iyo 40 daqiiqo markay ahayd ayaa qof baa ila soo hadlay wuxuu yidhi walaalow waxaan ku afuraan la ahay ee afurma misaad u baahan tahay oo ii soo tootolgareeyo adoo lacag buu u soo sheegay intaas 5:40 daqiiqo markay ahayd galabnimo ayuu u diray 5:40 daqiiqo markay maxaa u dhaxay 5 daqiiqo 2 daqiiqo u dhaxaysa ayaa embeesadii dhalow ku tahay embeesadiisii way soo dhacday waa fiiriyey lacagtii uu hadda bixiyey lacag taqriiban ku jaango-an ayaa embeesada ku soo dhacay waa 2 daqiiqo kadib beenaale waxaa leeyahay nin maqan iyo nin moodan buu markhaati gashada soo 2 nin ruuxuu isleeyahay kolley ma iman doonaa kugu markhaati furi doono raadino qof dhintay budhi hebel allah u naxariisteed hebel baa ila ogaa de ma akharo ka soo hadliibin ninkii wuu joogaa insha allahu tacaala haddii loo baahdo lacagtii markuu dabagalay telefoon baa loo soo diray salaamu calaykum wacalaykum salaam haa lacag intaa dhan ku soo gaadhay haa niyow lacagtii deynta iyadoo berigii igu lahayd ma garan lacagtii wey waa lacagu ka samray adogo waa lacagu ka samray bilaahi cilmigiisa fiir hadda markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad oo dhacdooyinka noocaasa aan qofka toos uga wari kara aan garanayo ii sheego isagoo ku dhacday maaha 2 daqiiqo ayuu dhaxaysay kii kale isna ha hadla marka kii kale isna anigana isla nafsa shay baa maanta igu dhacday oo lacag baan waday lacagta waxaan ugu talagalay inaan reerka shoobda ugu soo sameeyo qof baa ila soo hadlay wuxuu yidhi waryaa war way waa si adag ba iiga taallaaye walaala wixii soo diray bes waxaan go'aansaday anigu reerka dayn iyo waxbaan u raadsan karaa
alle leh ruuxan waanu diray daqiiqadii kadib haddana ambeesada biibbiiblay waata war waa sida lacagtii aan bixiyey intii iyadoo sidii u socota oo hataa weliba meel diin iyo waxbaana waa ku soo dhacdaa kanka waa shalay waxay arrintaa dhacayso idan yani waxaan faqriga un shaydaanka shaytaan yacidukum alfaqr waa mushkilad moogtahay haddii faqriga labadaba jacala faqrahu bayna caynayhi halka haddii ruuxa faqriga loo saaro hadduu xagga isugu kediya faqrigii buu arki hadduu xagga fiiriyo faqrigii buu arki kor hadduu fiiriyo hoos hadduu fiiriyo hadduu seexdo kadib haddii cudurkaa ku dhaco aafo wajacala faqrahu bayna caynayhi war xoolahan ilaahay baa kuu dhiibay aduu horta melihid bal ku qanac anaa la waxaa shafkan adu garaacanayso alla yaa ku daban kara shalay adoo faqiiroo xaalufoo soclowkaba meelaha soo socotay yaa ku fiiriy markii ilaahay kuu deeqay oo abaalkiisa iyo kugu shubay ayaad markaa waxaad bilowday inaad nicmada ku kufrido aad sanka taagto ayaad bilowday wa anfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih war xil baa laguu dhibtay magar xoolaha yaa tahay meleed adugu maalka nabiguna wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam waxaa ka mid a addoommaha ilaahay dad uu xoole iyo hanti uu u dhiibay linafci lcibaadi si ay addoommaha wax u taraan haddii marka xilka ay gutaan ilaahay waa ku baaqiyeela hantida waa loo daynayaa inta ay khayrka sida u wadaanay xaqa gudanayaan maalinta ay isla weynaadaan oo sheekadii qaaruun ay bilaabaan inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii waxabadka garaacdada adeer waa la shaqaystaa oo baashan ididkaa kaadigaa loo soo cabay waxaan hadda ay soomaalidu ay afuufaan ee maalayacniga waxaasoo dhan haddaad ku meeraysato shalay ilaahay baa kuu dhiibay maantana waa lagaa qaaday marka in la isku sii booriyo qof kastoo wax karaya wax yar iyo wax weyn sidoo u bixin lahaa aayaadkii iyo axaadiisii fadligooda ka warramayay in laga warramo iyo qodobka labaad oo ah runtii waxaa jira waqtigu yaraa duruuftu iyo waqtigan aynu ku yara jirnaa runtii waxaa jira waqti abaareed ilaahay naga soo jabiyay raxmadiisa ayaan ka barinaa si dhaqso ah inoogu keeno iyo sixir barar baa jira dadku waa jilicsan yihiin dadkuna marka horeba iyagoo jilicsanaa markay duruufuhu sii adkaadaanna xaaladdu way ku adkaata marka in la isku baraarujiyo la yidhaahdo waa bal dadkii jilicsanaa aan ka warhayno ama aynu kaga warhayno zakada ciddii xoolo saka gooye haysta qofkii haysta bal ka warhayo qofkii kale ee sadaqo sunnaa ama tadawuca haystaana wixii uu kari karo ha ka bixiyo labada arrimood baan isla malaa way ugu muhiimsantahay walaalayaal sadaqada quraanku aad buu uga warramay sadaqaduna waa bixin wax la bixiyo cadiyad la bixiyo weeye laakiin waxay kaga duwan tahay wax kastoo la bixiyo oo kale ilaahay baa ajri lagaga doonayaa iyada cidna la iskuma tusayo cidna waxba lagagama doonayo la isma laha aduu jaaniskanaad siistay isna jaaniska dambe ku siinaya may waa ilaahay baa loogu dhowaanaya ilaahay baa ajri lagaga doonaya cid kale oo wax lagaga doonayaana ma jirto sadaqaduna waa laba noocoo mid waa mid waajiba إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها من نوع حوي وصدقة السنة أي تضوعة إيه أنا هاي أنت واجبك لبضوا والصدقة لبضوا والصدقة قرآن الكريم كنا ولا ليلات وجو الرمي سورة دوها الرئيسة ama beejka ugu horeeya ama labada beej ugu horeeya quraanka markaad sadaqaad soo qadat sida u kala furto markaaba waxa kugu soo baxaysa sadaqadii baa kugu soo baxaysa iyo wax bixintii alif lam mim dhalika alkitab la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaybi wa yuqimuna as-salata wa hakuhiga wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum wixii aanu siinay ee aanu ku arsaaqnay barkeed ma wada bixinayaan waxbay ka bixinayaan wixii aanu ku arsaaqnay bay muuminiintu wax ka bixinayaan laguma wada laha waxaagii wax ka wada bixi wax ka bixi baa lagu leeyahay waa markaad halkaa eegto
إلا سعت قرآنك قديهيس يدحديس إلا قداش سورة وقدم بي قرآنك محاكو ترى فصل لربك وانحر ربك ونتك سادة مركا تكنس إلهي درتي وقل عدك لها يسكتوسي وانحر وحنا قورع وبحي وحبات قورعيسا وحبات قريسا وحاد قريسا وصدقوا يا خير عاد بحنس وأجل كاغي مني مركا قرآنك وحق وقوسي حق وقسريسي أنت كرد حيسا صدقوا ذو يكبوحده إلهنا سبحانه وتعالى السجايري إن الله يجزي المتصدقين هذا الكي أي لهذين إلهي صبا صار رأيه ولدي وحويان إخوة يوسف إن الله أله يجزي المتصدقين كوا صدقة بحية السجايا كأبالي دورة إله بكو ديارة وحيات بحسين وإلهي كو أبال جوده أو كأبال مريه بلا جناحسي وقوين إيه أن لو خسارين إيه إلهي الشيء وحقو كل شيء دور الريموت أو أي صدقة كمتاي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور جناحسي قاعد يدو ويسكا كفاك عبيسك لي ويسكا مرواد فايدة سا مرواد خسارة سا مردبك ورر بعض قفتها مروح حقا بعض كفر حيسا وحقا لكن جناحسي أن مرق ولا لهين وحويا خسارة وإلهي الشيء أي إلهي وحولي كتابك إلهي قفك الدائمي أخريا قفك السلاد